doorashaa ka jirta Soomaaliya hal iyo cod ninkii shalay ku dilay ee nabarka kugu dhuftay inuu maanta intuu ku soo tafaxay tuu ku yiraahdo maanta aniga badii aan shalay cagaareen kari waayeen maanta hadana casaynaya soo nabar kala ma nima gaboobaya marba ka kursiga ku jooga maahana ka kale wada ogeedeen doorashadii tan ka horeysay waxba lama bedelin ina siyaad bar laamigu kaga dhintay kaga tagay 30 sano ka hor intani ba aysan qayto dhalan ayaa wali ku yaala dalka gaalkacyo laga bilaabo ilaa xamar chachapkaas lama mari karo ninkii maray baa garanay kan la sacado xagga ilaa boosaas aadana waa kii u dhisay maxaa lagu soo kordhiyay wuxuu yiri Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan dumarkii iyo caruurto dadkii idinka weynaa haday idin duleeyeen cunna dambi kama ayaabina cunna idinka doortay dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen booraan intay qodeen bay ciid idinku duugay dameerkuba ma yeeleen buu yiri siday tala u daayeen dameerkuba ma yeeleen dameer waa tala qariban weeyaan kufsiga ninka xoog u adeegsaday gabadh yar oo muslimada oo dilay oo xoogii isugu daray yaani kufsiga isugu daray ninkaasi xukunka uu qaadanayo culimadu way fadhidaa waa xukunka ninka dariiqa istaaga uu qaadanayo wali waa xukunka in la salbiyo oo isdhaaf loo jaro labadiisa xubno isdhaaf loo jaro saysan ugu dhicin mar dambe in gabadh loo kufsado shalay bay dhacday walaalayaal oo deegaamadeenay ka dhacday oo deegaamada Soomaalida oo dhan bay ka dhacday gabadh yar in 23 nin lagu fuulo 10 nin in lagu fuulay deegaanka ka dhacday maaha ceebtu deegaan maaha ceebtu qabiil maaha ee ceebtu waxa weeye cidda waxaan jaan goynaysa cidda loo dhiibay dhigi jirtay anaga talin jirnay ninka quraan akhris badan ma jiro ninka masaajid isaga masaajidkaaga horeeya oo ka salaad badan oo ka duca badan ilaahay markuu bariyo wad yaabaysa waxa la iimaanba kuma jira baadiga marka xukunka ilaahay uu yimaadana wuxuu leeyahay aniga aqaana tantii ilaahay maaha waxaan anaga noo daayay idinku ciyaal baatiin waxba ka garan maysaan reeraa isku dhacaya reeraa isku rogmanaya waxaad ka fahmaysaan maaha ceebta banaanka looma saaro waxaan waa ceeb ilaahay subhanahu wa ta'ala baan marka koobaad ma hadinayna maanta oo kalena xagga loo orda waa xagga ilaahay in weeyaan in qulubta ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xidho oo guryaha ilaahay subhanahu wa ta'ala la camiro oo qulubteena iimaan laga buuxiyo oo la sahay qaato maahaane wax kale ruuxa mu'minka la gudbon ma jirto وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإله سبحانه وتعالى والصحي قاتا صحي لقاتا وحاقوا وناكسنا وقفي عن عبصي الله سبحانه وتعالى إله لقى عبد صدوق حالة إن ولا ليالمانتا كجنو وحالة أدوادق ويان ولما مجتمعين الصومالي إسلام كا مجتمع إن بدن كهاجر يدين تود إسلام كا بيننا ولا لي ودين الصورة دي حقيقة ويان حقيقة دي واتي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يحيين إنقنا الصورة دي بين ما انتهينا ولا ليا لماذا محن ساوله نحي كتاب كي قرآن كان مساجد كويا الله دينتي مساجد كويتا الله روحي مسلم كي عرب كي شهادة وشهادنا يا بنتي كتجي مايو حارانتي كتجي مايو بلن كي وفين مايو يجي مسلم ككوي عن مايو محرمات كي موبقات كي وحلاقة يودنا النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سيد بيها الله قرقرية بينو قرقرين واتي صحابته ليه جيران ونمان يو waxaad sameeynaysan bay taabiciintii ku jireen amal baad sameeynaysan amal kaas oo markaan nabi Muhammad la joognay alayhi salatu wasalaam annaga agtayada ka aha kuwa waxa laagay mubiqaadka idinkana agtiinayda kala fudud xabada tintayda kala fudud bay dhigi jireen saxaabadii nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam wala la yaab mawduuca ugu weyn wala la yarabay waa mawduuci badan halkan ka taabanay weeyaan libaada minbarkan wala la yaab nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu kaga hadli jiray ku saxayay مجتمع waxa ka qaldan nabiga alayhi salatu wasalaam ku saxay wuxuu ku waaninayo wixii ka dhiman nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ku waaniyo ku baraarujinay waxaan maanta baahida ugu weyn u qabnaa walaalayaal waa maxay waa shariicada ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ilaahay subhanahu wa ta'ala xukunkiisu aanu ku dhaqanno waa kitaabka quraanka ee munazzalka ee ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigiisa inoo dhaxyaala inuu ka barakaysanayno aan akhrisanayno ee badankeena suuratul kaafi ay akhristeen ee ciyaalkeena u soo dirayno oo aynu ku dhaqanno oo kashkeena laabteena gala weeyaan ليصلح آخر هذه الأمة بما صلح بها أولها أمة آخر كيدن حقاقي ميسا آخر زبان كجوكتا إلا وحي تين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكو حقاقي أول كده يكو حقاقي ما هاني صدح فري موضوع الليال أولا محاين كو دقنا حدقني نواه مدد وحين أنه مرجع عدو يهي كتابك إلهي سبحانه وتعالى مركي حالة دي كتمادو نسا وحين هدد أضياش أولاتا ما waxayna haydad ilaahay subhanahu wa ta'ala u laabta marka xaaladii ku timaado
mise waxay nahay dad u laabta maraykanka u laabta dad u laabta reer galbeedka u laabta u yidhaahdaa maxay taladaa ka dejiyeen maxaa qoondadaas ay noo siiyeen maxay xukumeen baarlamaanka maraykanku maxay xukumeen maxay baarlamaankeennu ansixiyeen maxay qaateen sow ilaahay ma oran am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah aayadihii ugu dambeeyey qur-aanka soo dega suuratu lmaa'ida yahay afa xukma aljaahiliyati yabquun war ma xukunkii jaahiliga haba dalbaysaan baa ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy haddaad muslimiin tihiin oo aad mu'miniin tihiin oo dad ilaahay subxaana wa tacaala aan rumeeye aad tihiin ma xukunkii jaahiliga haba dalbaysaan waa maxay xukunka jaahiligaa xukun kastoon samada ka iman waa xukun jaahiliya weeyaan xukun kastoon ilaahay subxaana wa tacaala dejinin oo ilaahay subxaana wa tacaala ina siinin oo oday uu dhoobay ama ay xeerbeegto dhoobtay ama caalam dhoobay ama dowlada isku yimaadeen ama cuqalada iyo brofesoradoo dhan ay ka tashteen oo ay ka shireen xukun kastoo ay ka fadhiistaan waa xukun jaahiliya weeyaan xukun ilaahay gaadhi maayo ilaahay sooma oranin alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina war diintiina waan idin dhammaystira baa ilahay yidhi si guud si dhammaystiran baan idinku dhammaystira waxaan idinka ilaaway ma jirto waxaan ka tegey ma jirto macaamilaadkiinni baan idiin sheegay oo macaashiraadkiinni baan idiin sheegay waa diinta sidaad xaaskaaga ugu tegayso uu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaad xaaskaaga u tegayso adkaartaad akhrisanaysa waa diinta inoo sheegtay weeyaan xaalka aad u seexanayso waa diinta inoo sheegtay weya iska badaa xukun weyn gabadh laga zinaystay iyo wiil zinaystay iyo nin zaaniya nin shaaribu lkhamriya nin qaatila oo dad dilay oo yani maqtuula yani qaatila baan ka wada dad dilay iska badaaba meelaha fogba intaan laisla gaadhini waa diinta kuu sheegaysa xataa suuliga lugtaad ku galayso iyo lugtaad kaga soo baxayso iyo qaabkaad u fadhiisanayso iyo adaabiyaadkaad ku joogayso suuligaad ku joogayso waa diinta inoo sheegaysa weeyaan waaya walaalayaal marka maanta diintii markaaynu ka tagnay dhibaatadan maanta aynu ku jirna unbaa tagtay idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waraditum bizarc وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى إلا ترجعوا عن دينكم أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وكي النبي يقول لها حديث معني سوى حداد حول دقتي اسكر رعدان وقد قناع سجيني كدرتان ربادي كدرتان واللقضي دبادة قبستان وجهاد كي كتكتان يدين تددال كيدي يديد كيدي يدي كيدي بعد بحين جرتين كتكتان دل با إلهي نصور يا أوسني دي كسيبي دونين laabasho aad u laabataan diintiinni maahaani waxay ku xidhan tahay siibitaanka dulliga laynaga siibayaa inaan diinta ilaahay subxaana wa tacaala u laabanno xaaladda maanta deegaankeenna dib ugu laabta waxaa walaalayaal aanan gabasho lahayn inuu khamrigu batay in kaabad kastaaba khamrigu maanta yaallo in meheradaha khamriga lagu gada la yaqaano inuu leeyahay khamrigu bardaloolo lagu ilaaliyo iyo qoryo lagu ilaaliyo ciidan nafhurayaalah oo naftooda u baabiinayo u halligayo ka soo horeeya inuu leeyahay waxaydan haddaba intaa ku darsanin baan idiin sheegay khamrigu wuxuu leeyahay odayaal difaaca khamriga kitaab loo sameeyo lagu difaaca baa jira xaqiiqada marka laga hadlo qodobka intaasaan kaga gudbay qodobka labaad nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhammaantiin mas-uul baa tihiin ummaddan yaa mas-uul ka ah madaxda mas-uul ka ah madaxda ummaddan mas-uul ka ah away madaxdeedii doorashaa ka jirta soomaaliya hal iyo cod ninkii shalay ku dilay ee nabarka kugu dhuftay inuu maanta intuu kuu soo tafaxay ta uu ku yidhaahda maanta anigaa baddii aan shalay cagaarayn kari waayeen maanta haddana casaynaya sow nabar kale maaha nima gaboobayaa marba kaa kursiga ku jooga maahana ka kale waad ogeedeen doorashadii tan ka horreysay waxba lama bedelin diin waxba looguma soo kordhinin oo kitaabka ilaahay weli meeshii buu ka taagay oo bannaankuu ka taagan yahay soomaaliya waa qodob weli waa dimuquraadiyaddii kaba soco duunyadii maxaa loo qabtay ina siyaad barre laamigii uu kaga tegey 30 sano ka hor intaniba aysan qaybtood dhalan ayaa weli ku yaalla dalka gaalkacyo laga bilaabo ilaa xamar jajabkaas lama mari karo ninkii mare baa garanaya kan laasacanood xaggaa ilaa boosaasi aadana waa kii uu dhisay maxaa lagu soo kordhiyey ummaddaa markaa la kala qaybsanaya waa la isku dilayaa marba hadal baa la soo jeedinaya laleeyahay baddanaanu casaynayna annagaa cagaareen annagaana madoobeynayna annagana imaaraad baana wata may imaaraadka annaguna ma watin maraykan baana wata intaa midina dan ma wado ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada oo cidda u kala codaynaysa ha fahamta nabarku meeshuu kaga socdo ha ogaato sababtoo ah gacantaada maalinta qiyaamaha ilahay waa ku weydiinaya uma latus'aluna yowmaidin can inaciim ka talada ku darsanaya iyo ka xooga ku darsanaya iyo ka xoolaha ku darsanaya mid kastaaba waa mid ka qayb qaadanaya dhibaatada halkaa timaada waa mid qayb ka qaatay weeyaan
loo baahan in isbedel imaan kara loo baahan yahay waa in maalin kasta dadka ciyaal maaha maalin la arka khudbadii loo jeediyo kaliya la yiraahdo kii shalay ballan qaadidii lagu cid kula xisaabtami kartaa ma jirto 20 shay baa la ballan qaaday maalintii 5 sano ka hor 5 sano ka hor ballan qaadidii maxaa ku dambeysay keenan magaaladeena lagama warqabo magaalo kalena lagama warqabo bal iska baday shacabkii baa dulman oo xoolahoodii laga qaaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga cabso qodobka inta ay raaca oo ugu dambeysaan ku gabagabeynaya waxa weeye markii saddexaadna walaaleel mimbarkaasaan kaga hadalku wuxuu micno yeeshaa marka ficil uu leeyahay wuxuu micno yeeshaa markuu dheg helayo inama yastajiibu alladina yasmacuun wuxuu hadalku qiimo leeyahay marka cid intay maqasho ku dhaqanta la helayo ma ogtihiin ninkii doora buu hadalku deeqaa ninkii doora buu hadalku deeqaa waxaa soo batay kufsigii baa soo batay waxaa soo batay kufsigii baa soo batay weliba ficillo aynan weligeen aqoonin oo argagax leh ma baraha bulshada talow oo hore aan bara bulsho loo aqoonin oo dhaqankeedu waa jiray ma fitantan imika socota ee aakhiru zamaanka baa keenaysa in dadku bilaa qiyam u noqdo waxaa hadda xaaladan cusub taagan laba nin oo isku hooyo isku aaba ah inay gabadh 9 jir kufsan jireen oo ay kufsadeen oo 9 sano ku wadeen oo ay family-gu yiraahdeen magteedaan u bixinayna hadday dhibaatadu inta sidaa ku jirto nin kastooba gabadha dhashan u baqaya ninka halka fadhiyo gabadha dhashay baan u baqayaa in maalin kasta mimbarka cadaalad looga raadiyo arrinku saad moodaysaan maaha waxaan ka goostay wuxuuna ku hagaagayaa waa maxay waa in shariica islaam loo laabto in alxukmu illa lillah xukunka ilaahay muxuu ilaahay ka xukmiyey zinada iyo kufsigu waa laba kala yihiin zino waa laba farji oo isku tegay iyagoo raalli iska ah si xaaraan ah oonan xarig u dhaxaynin oo sharci aan ahayn taasaa zina la yiraahdaa markaasaa ilaahay leeyahay fajlidu kulla waahidin minhuma 100 jalda ayagu 100 jeedal bay leeyihiin yaa ku dhufanaya amiirkii baa ku dhufanaya xagee loogu dhufanaya ummadii oo dhan baa loo yaray waxa leeyahay gabadhana waa zaaniyad zinaysata ninkana waa zaani zinaysay magaalada oo dhan baa daawanaysa jeedalka la dhacayo waa lagu ceebeynay magaalada oo dhan baa daawanaysa si kan kale uga waantoobo waa marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala laakiin ruuxii kufsaday culimada weydiiya kufsiga ninka xoog u adeegsaday gabadh yar oo muslimada oo dilay oo xoogii isugu daray yani kufsiga isugu daray ninkaasi xukunka uu qaadanayo culimadu way fadhidaay waa xukunka ninka dariiqa istaaga uu qaadanayo weli waa xukunka in la salbiyo oo isdhaaf loo jaro labadiisa xubnood isdhaaf loo jaro si aysan ugu dhicin mar dambe in gabadh loo kufsado shalay bay dhacday walaalayaal oo deegaamadeenay ka dhacday oo deegaamada Soomaalida oo dhan bay ka dhacday gabadh yar in 23 nin lagu fuulo 10 nin in lagu fuulay deegaanka ka dhacday maaha ceebtu deegaan maaha ceebtu qabiil maaha ee ceebtu waxa weeye cidda waxaan jaan goynaysa cidda loo dhiibay dhigi jirtay anaga talin jirnay ninka quraan akhris badan ma jiro ninka masaajid isaga masaajidka horeeya oo ka salaad badan oo ka duca badan ilaahay markuu bariyo wad yaabaysa waxa la iimaanba kuma jira baadiga marka xukunka ilaahay uu yimaadana wuxuu leeyahay aniga aqaana tanti ilaahay maaha waxana naga noo daayay idinku ciyaal baatiin waxba ka garan maysaan reeraa isku dhacaya reeraa isku rogmanaya waxaad ka fahmaysaan maaha ceebta banaanka looma saaro waxana waa ceeb adiga ceebti faafinaya adiga qarinaya aday kugu tashanayaan ciyaalka yani khamriinu ku tashanaya oo khamriinu muxuu ku tashanaya awdaygiibu ku tashanaya inuu sii daayo qaatilku odaygiibu maanta ku tashanaya zaanigu odaygiibu maanta ku tashanaya wuxuu ku tashanaya cid maamulka ka furfurayso ka sii deynaysa war ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka cabsadaan fariintaydaas culumo haday idin gaadho odayaalow haday idin gaadho madaxay haday idin gaadho ilaahay hortiisan ku xisaabtamayna fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah wuxuu yiri sayyid maxamed abdullah xasan dumarkii iyo caruurto dadkii idinka weynaa haday idin duleeyeen cunna dambi kama ayaabina cunna idinka doorteen dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen booraan intay qodeen bay ciid idinku duugeen dameerkuba ma yeelan buu yiri siday tala u daayeen dameerkuba ma yeelan dameer waa tala qariban weeyaan nin kastooba caruurtaada sidaad u sameyn lahayd u samee gabdhaheena aan wareysano oo ciyaalkeena aan wareysano oo wiilasheena aan wareysano oo ardadeena aan wareysano maaha aan ceeb aan faafinayna maaha waxa weeye dulmigan imika batay waxa ay tabanayaan weydiiya markaysa dhibaato kugu timaado Allah ka ilaaliye taladaada ciidan ilaahay ha u dhiibani taladaada ciidan xukun diimeed ahayn ha u dhiibani oday xukunka yani ulo beeraya
mag ula beeraya xaal ula beeraya gabadhu xaalka ku qaadan mayso gabadhaadu xaalka qaadan mayso kontonkan halaad adigu qaadan maysi odayaal baa kala qaybsanaya xoolahaas waxay ku baxayaan dan nin leeyahay oo kale ku baxayaan waxaadna moodaa aan ku soo gabagabeynaya Sacad bin Mucaad radiyallahu anhu Allah ka raali noqday sidii suldaannimadii uu jannada ku galay inay kuwan maanta salaadinintan zamankan joogta meeshay doonaan ha joogaan in ilaahay u naxariistay maalinta kale inay cadaab ku galiyaan madmooda maxaa yeelay ihtaza arshu arrahmaan 6 sano kaliyo islaam aha suldaan qoomna uu aha arshiga rahmaanka oo dhan baa galgashay 70 kun oo malagna waa soo degeen geeridiis bal kuwan ka warrama ilaahay bay ku dhaari muxuu sameeyay saxaabigaas anfaco kama tagin hanti kama tagin adduunyo kama tagin umada wuxuu ugu shaqeynaysay diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala ay qoomkiisa soo qaadan lahaayeen bas laakiin hadii manfaacadu ay noqoto xaaja sidee u dhacdaa sidee laba qabiil isku dilaa hadii busaaradii timaadaba hadii macaashku uu galo dagaal ka warraba qofkaasi muu liibaanaya hunguriguna shil weeye waxay kuman ku heermeen waa damac nin heegada u baxay hoos u soo rida nin hunguri wata oo calooshiisu gareedeen u tahay madax ma noqon karo madaxna ceebeen meeno dhaleecayn meeno laga caymayo waxaan leenahay sifadatani waa sifo khaldan oo fool xun in la doorsado dadkii hanti iyo geel iyo xaal la dhaafsado ee waa in xukunka islaamiga la qaataa ilaahay waxaan weydiisanaa tawfiiqda Allah ina waafajiyo اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين امرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا ينزعنا الا عفوك بجهدك وعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين الهي وحن ويدسنا انه نحرسته عافيه عافماد الله ينسيه والدينته انت حنشن الله عافيه سريرها انت سار الله عافيه الهي عافماد تمام كويدسنا من بركه شيء الله كويدسنا ما نجي دعاوي الله دعاء الله نغاب امين تي يا انت ملائكه الله الصبر قولوا كي الله عافيه عدك سمي حنشن سيرها عافماد تمام الله نوصي الله حكمكيga حكم اسلام الله كير kitaabkaaga inaan u laabano oo ilaahu ku dhaqano oo qaadano oo aqbalno laabteeda ay ka daadato diinteedu xaqiiqo ay noqoto ilaahu quluubahayaga iyo laabahayaga iyo jasadkayga iyo jirkayagaba ilaahu adiga ku sharci kale ku sharax oo ilaahu noo fududeey ilaahu madaxda noo soo hadeen odayaasha ilaahu noo soo hadeen qulubada ilaahu noo adkee ilaahu waxaan weydiisanaa fadligaaga iyo karaamkaaga iyo deeqdaada khamrigaas farabaas nagu haya ilaahu khamrigaas farabaas nagu haya ilaahu waa kaaga dacwoonayna ilaahu inta iibisa iyo inta qaada iyo inta shushubta iyo inta qaada hidaayadii hadda hoo faysale ilaahu guriyaha ku soo wadasho ilaahu ay soo wada islaama ilaahu ay soo wada xanuuna 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 ilaahu kaadan hidaayadu qorin oo aadan xanuun u qorin oo halka loogu khaatumeynayo oo la seejinayo jannadii la seejinayo ilaahay oo anaga insha Allah galaafan ilaahu badka nooga ilaali oo deegaanka ilaahu nooga ilaali oo diinta ilaahu nooga ilaali ilaahu saasan ku weydiisanayna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin